ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale munaasabadda xil wareejinta waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Xirsi Aadan Rooble, agaasimaha guud ee wasaaradda Cali Gacal iyo maareeyaha duulista rayidka Axmed Macalin Xasan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xirsi Aadan Rooble oo xilka ku wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda ayaa soo dhaweyn kadib sheegay inay la shaqeyn doonaan wasiirka cusub ee wasaaradda. waxaa la wareejinayaa xilkii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waa maqan yahay. aniga la idmaday inaan wareejiyo xilka kuna wareejiyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee cusub Master Durran. sidaa awgeed mudana wasiir ku soo dhawaad wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, ku soo dhawaad shaqaalaheedii iyo xarunteedii. wixii intaa ka dambeeyana waxa weeye waa wada socod doonaa, hoosna waa u sii wada geli doonaa insha Allahu tacaala. wixii hawla oo hawl maalmeeda waxaan leeyahay Ilaahay ha ku fududeeyo. wasiirka cusub ee xilka la wareegay Durran Axmed Faarax ayaa ballan qaaday inuu sii xoojin doono hawlaha ka socda wasaaradda. ugu horeysa waxaan rabaa ilaahay u mahad celiyo, marka ku xigta aan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynahaba oo runtii ii gartay ama igu aaminay hawshan aadka u culus oo baaxadda leh inay la ii dhiibo. waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala inaan ku ceeboobino sidii loogu talagalay inaan uga soo baxo haddii Ilaahay yiraahdo, markaan daan si fiican u wada shaqeyno. qorshaha aan rabo inaan ku wada shaqeyno waxa ugu muhiimsan ay tahay sidii loo dardargelin lahaa hawlihii hore u socday in la dardargeliyo oo si fiican loo dhammaystiro. kuwa maxaa la yiraahdaa hadda loo baahan yahayna inaan iyakana wixii aan isleenahay waxbaa ka dhiman way u baahan yihiin in la hagaajiyana sidaan u hagaajin lahayn inaan ka shaqeyno. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Guuleed Qadar ayaa sheegay in 4 sano ee la soo dhaafay ay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ay tilaabo wanaagsan u qaaday dhinaca horumarka. muddada 4 sanadood run ahaantii idinka qudhiinu markhaatiba ka tihiin xukuumaddu shaqooyinka waaweyn ee guusha ah ay qabatay, waliba dhinaca duulista iyo gaadiidka cirka aynu ka qabanay. hadday noqoto soo wareejinta hawadeennii, dhisidda sharci ahaan iyo nidaam ahaanba hay'addii duulista rayidka, shaqooyinka kale ee qalabkii lagu shaqeynayo iyadana la daahfuray, madaxweynuhu daahfuray soo wareejintii hawada, iyo horumarka ballaadhan ee wasaaradda intaa ka qabsoomay dhinac sharci, dhinaca nidaam iyo dhinacii hay'adihii kala duwanaaba. waa wasaarad ballaadhan oo adeeg bixisa dunida imaka guud ahaan, gaar ahaan dunida saddexaad ee soo koreysana ilaha dhaqaalaha ee dhinaca adeega ama serviceka dalkaasi uu bixiyaa oo ay ka mid tahay aviationka ama duulista, gaadiidka, bangiyada, hodheelada iyo tourismka ama dalxiiska. waa meelaha ilaha dhaqaale ee degdeg ay ka soo baxaan ee ay tahay in si fiican looga shaqeeyo. Cumar Maxamed, Hirshabelle TV, magaalada Muqdisho.